markan Afgooye deegaanka ceelasha biyaha ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa qoysas danyar ah oo ku nool halkaasi waxaa la gaarsiiyay hilibka xoolaha udxiyada ee ciida sida faafahinta warkaasi magaalada Afgooye oo kaga soo diray wariyayga Cabdiweli Cali online ayadoo lagu guda jiro maalmaha munaasabada ciida ayaa hay'adda Somali Relief Network oo ah hay'ad caalami ah oo ka howlgasha meelo fara badan oo kamid ah geyiga Soomaaliya waxa ay deeq hilib xoolaha ah u qaybisay boqolaal qoys oo danyar ah oo ku dhibaataysan kaaman ku yaala inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. Hay'adan caalamiga ah ee Somali Relief Network ee uu madaxda ka yahay Aadan Maxamed Ciise Aadan Gadaale ayaa dadkan danyarta ah u qashay 700 oo neef oo lo ah iyo 200 neef oo ari ah taas oo ay ugu talagashay in ay kaga qayb qaataan farxadda munaasabada ciida. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan xoolaha ah oo u mahad celinaya hay'adda Somali Relief Network ee uu fadhigeedu yahay dalka Mareykanka. anaga bismillaahir rahmaanir rahiim hadda bukoowno kaamsi usoo degno waxa noolsina hadda bismillaah hadda koowno hay'adda sharafta leh waxa idin codsanaynaa waa mahadsantiin boqolkiiba boqol maanta maraqa noo keenteen shaldan si u fadhan waa noolsi malaasana u fadhan ilaa maanta shal idin markay imaateen oo warbixin ugu bixiseen oo waxa idin soo wadnaa idin dhacday waa idin faraxnay xalay hata si anaga oo ilaahay nool okay xalay dhan saa u fadhana waa noogu bariyay idin sugayni haddana alxamdulillah rabbil caalamiin hay'adda sharafta leh waxa idin codsanaynaa waxay idin siisaan magaca rasuul ilaahay khayr badan ala idin siiyo haddana waxaan rabnaa hay'adda barakaysan oo maanta na soo booqatay oo Somali Relief Network oo meelininka qoyti ilaahay jeeyay rasuulka jeeyay intii kaalmay busta ma haysan wal barasho ma haysan wal una haysan mala caafimaad ma haysan ciyaalka wal barasho ma haysan mashaar ma haysan wal una haysan ma nolol si degdeg ah in nolol nahni deersi ilaahay jeeyay hay'adda barakaysan taasoo ku codsadaan wakiilka Somali Relief Network ee deegaanadan Ibrahim Usman Abdallah oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay madaxda hay'adda Somali Relief Network ee uu ka mid yahay gudoomiyaha guud ee hay'adda Aadan Maxamed Ciise Aadan Gadaale oo inta badan isagu isku howla sidii loo caawin lahaa dadka danta yar ee ku nool guud ahaan Soomaaliya. halka aan soo booqani waa kaam ka mid ah oo Muqdisho oo daafaheeda sa arkaysaan waxaan hareer joogo odayaashii oo waxaan joogo kaamka ah waa mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta oo kaam ka mid ah madaxa kaamka joogo Nasiibullah maanta nasiib waxa uu yeesheen hay'adda ugu horeysa oo maanta hilib u qaybisa Somali Relief Network of America baaqna ay u dirayaan in kaalmo degdeg ay la soo gaarayaan waa dadku ka soo qaxay yani meel kala duwan ay ka soo qaxeen insha Allah ta'ala kulay odayaasha deegaankan way hadli doonaan waa hay'adda ugu horeysa oo hadda afka ku sheegay mas'uulka oo kaamka ah hilibka soo gaarsiisay hay'adda Somali Relief Network of America insha Allah ta'ala waa hablaha waan u qaybin oo u jeedaan mar walibana odayaashana hadda way noo dhiman yihiin insha Allah ta'ala waan siin doonaa sanadkiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa sidaas ka fiican sidoo kale waxay baaq ahayd ugu diraan in yani nolol maalmeedkooda inay kaafi aysan ahayn yani saddexda waqti inay hal waqti ay cunayaan ay sheegeen hal waqti ah oo qadada ah aysan gaari karin oo nafta ay ku ceshanayaan kastoo Soomaaliya ay ka howlgalaan hay'ado fara badan ayaa haddana hay'adda caalamiga ah ee Somali Relief Network waxa ay ka mid tahay hay'adaha sida tooska u caawiya dadka danta yar waxa ayna hay'adda ka howlgashaa meelo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya taas oo xoogga saarto sidii loo dabooli lahaa baahida dadka u baahan caawinaadda. Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.